madaxda maamul goboleedyada ee qaybta ka ah dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada Garowe si ay uga qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdullaahi Dane. Waxaa maanta soo gaaray magaalada caasimadda ee Garowe madaxweynayaasha kale ah madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. Sidoo kale waxaa Garowe soo gaaray madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare. madaxdan dhamaantood waxaa garoonka diyaaradaha ee injineer Abshir ku soo dhaweeyay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dane. sidoo kale madaxdan ayaa ka mahad celiyay sidii maamuuska lahayd ee Garowe loogu soo dhaweeyay. shacabka reer Puntland ay u arkeen inay tiin dadkii xaaladda lagu jira ka bixin waxaan leeyahay guul baan idin rajeynaya insha Allah. ugu faraxsanahay inaan maanta imaano magaalada madaxda dowlad goboleedka Puntland Garowe oo aan u imaano caleemasaarka madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dane oo madaxweynaha Puntland inaan ka soo qayb galno nagulana soo dhaweeyay sharaf ay noo tahay si fiican baan naloo soo dhaweeyay aad baan ugu faraxsanahay runtii aniga iyo wafdiga ka kooban wasiiro iyo iyo xildhibaano oo ay hogaaminayaan dhinacaas gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiyaha ku-xigeenka iyo aniga farxad darteedaan maaragtay yaan intayna soo raacnay inaan idii hambaliyeyno wanaaga iyo dadnimada iyo isu tanaasulka iyo is-ixtiraamka siday doorashadu ku dhacday oo example annagoo dhan noo wada ahayd iyo shacabka iyo madaxda Puntland inaan u hambaliyeyno farxadaasna la qaybsano safarkeena waa intaas oo maaragtay yuu yahay. caasimadda Puntland ee Garowe ilaa shalay waxaa ku soo qulqulayay wafuud kala duwan oo ka socota Soomaaliya iyo caalamka si ay uga qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Puntland oo berito lagu wado inay ka qabsoonto caasimadda Puntland ee Garowe. Cabdilaahi Cabdinuur Yuusuf Cabdilaahi Bakayle telefishinka caalamiga CNN Garowe.